كن سقال بقول إيو تضرع دعوة أونلاين. بسم الله الحمد لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن عبد الرحمن مهدي ما توحنا كهذا الدورنا أرين هذا حساسية شرقول لو دقي مدة إسلامك سي لو خلق قيبي شركة سنوى حول على كل سقال بقول يتضرع وحنا اسكوبي يرين المجلس الله يقانو كامبل بانرمان وحلقة أها رئيس الوزراء إنجليزك وحاول اسكوبي يرين تضرع وطن وحكمدها إنجليزك فرنسيسك تاليانيكا برتغيسكا إسبانيشكا أم بلجم إيو نذرلاند أم هولاند سو تقاني وحاول قيبي مابسكا عالمك إسلامك وحانا أو تصي inay tahay halkaasi sirta awoodooda iyo sirta awood daradooda waxa uu ku yiri waxa ay halkaasi ay haystaan waxyaalo anagu aan haysan waxa ka dhaxeeya af qura waxa ka dhaxaysa diin qura annaguna intaasoo diimood iyo intaasoo af baan kala leenahay waxaan u baahanahay in aanu ku beerno wadan dibadda ka kaas oo saddex shaqo qabanay number 1 in uu kala gooyo galbeedka uu bariga ka gooyo yani wadamada islaamka galbeedka ku yaal iyo bariga ku yaal inuu kala gooyo dhexbarta ka wado taas oo takoobay number 2 waa in uu u shaqeeyo danaha reer galbeedka saddexaad waana ugu muhiimsan waa in uu ka dhigo meel aan deganeyn xasilooni aan lahayn waayo xasiloonidu waxay keentaa amniguna waxa uu keenaa isbedelkuna waxa uu keenaa horumar wuxuu halkan waxay u baahan yihiin kaliyaata dad sax ama hogaamiyaal sax si ugu kacaan taana way ka dhiman tahay markaas si aan loo helin waa in meesha laga dhigaa meel aan xasiloonayn ama dagaal hal gasho ama iyaga ha laga garab dhaliyo waxa loo yaqaano khilaafaad ama dhibatooyin dhexdooda haddaba Israa'iil afka lagama magacaabin waxaan ku noqon doonaa shirkii ugu horeeyay ee loo qabto danaha Yuhuudda waxaana uu ahaa 1897 waxaana qabtay nin magaciisa loo yaqaano Herzl shirkaas waxa lagu ku soo bandhigay in ay u baahan yihiin Yuhuuddu wadan ay degaan saddex wadan ayaa uu soo qaaday una rabay inuu dego koobaad oo ah Uganda talabaad oo ah Palestine saddexaad oo ah Argentina waxa maqlay arrinkan ee lagu shiray 1907 nin magaciisa lagu magacaabo Hayim Weizmann waxa weeyaan waa nin Yuhuudda madaxooga ma u sareeya wuxuu akhriyay qoraalkan sheegaya in loo baahan yahay wadan dibadda ka ah wadamada islaamka oo kala qaybiya waxa uu yiri annaga diyaar shardi baan leenahay waxaan u baahanahay wadno fulinaysa hadday saxiix tahay hadday awood tahay hadday dhaqaale tahay yani idinkan dhabarkaydan ku haynaa markaa ballantaas ay galeen Hayim Weizmann waxa uu sameeyey in uu ka dhaadhiciyo wadamadan galbeedka isku yimiday say Israa'iil uga dhigaan muxuu ahaa wadankaasoo la dejinaya Palestine kaasoo abuuraya xasilooni la'aan sayna u iman dad saxa oo wax bedela 1918 ilaa laga gaarayo May 15keegii 1948 waxa la furinayay heshiiskii ay kala dhex galeen Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka kaasoo ah in Israa'iil wadan looga dhiso Palestine dhexdeeda. Assalamu alaikum
waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.